بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan jecelahay halka kan inaan maantana idila wadaago wacyigelintii mujtamacu u baahnaa oon u arko wax daruuri ah. Maanta waxaan idiin sheegi doonaa taariikh yar oo gaaban oo noloshayda si qofkan si aad u qiimaysaan waxyaabaha maaragtay anigu aan aaminsanahay iyo waxyaabaha ay soo maray. anigu sideedaba laba shay baan adduunka ugu necbahay dabeeciyan ilaa yaraantaydii. labadaa shay waxa weeye kelitalis iyo musuqmaasuq. hantii umad leedahay oo dad masaakiina lagu soo ururiyo oo musuqmaasuqo iyo nin keligii yidhaahda anaa talinaya oo kan iyo xidhkan iyo dilkan wax sii kan ka qaata yani uu yahay un qof keligii amar bixiya. labadaasaan ilaa yaraanteeda ugu necbaa. waxaan anigu ahaa ninkii ugu horreeyey waktigii kacaanka ee arday ah ee kacaandiid lagu xidho 71 faarax umaran oo dhiganaya ayaa dad la xidhxidhay oo allah u naxariistay aabaha iyo odayaal badan oo imika dhintay ay ku jiraan uu ka mid yahay maxamed ducaale kulmiye hotel, maxaan ku idhahdaa gudcur, maxaan ku idhahdaa xaaji axmed ildab, xaaji yaaxeen tuyuub iyo kulle qaaran ilaaweynta raggaasi ay ka midka ahaayeen, iyo maxamed xasan dalab. ilaahay ha wada naxariisto dhammaantood waxa maanta ka nool maxamed xasan dalab baa ka nool. raggaasaa layla xidhay gacantiid lagu eedeeyey. waan tegey haddana xamar baan shaqaa ka helay bangiga horumarinta. muddo yar markan joogay baa haddana meeshii la odhan jiray godka ee shabeelle u dhaweeyay NSSta halkaasa haddana laygu xidhay gacantiid. waxaan kacaanka diidkaas anina waxay ahayd jinsiyad asal ahaan baan necba anigu waxtan inkastoo dee taa aan odayaasha la xidhnaahay hafiraad ahayd lay hafraayey oo waxa kaliya lagu qabsadona odayaashaas oon u dacwooday markii la xidhay iyaga. qofka u dacwoodo qofka candiida isna gacandiid baa laga dhigay. waxaa soo xigtay SNMT markii la asaasiyey oon iskuulkan London School of Economics aan master degree ka diyaarinayay ayaa dhaqaaqii halkaas aynu ka qayb galnay shirarka iyo ururinteedii iyo hunteedii ayaa basaasiintii safaaraddu ay u direen dowladda anagoo markaas weli aan shaqadii ka tegin laakiin scholarship markaa ku soo baxay. scholarshipkiise iga dhammaaday oo anigu iskayaan wax u baranayo. waxaa la dhigay waaran baa la jaray eerboodada iyagoo filaayey waktigaas oo iga dhammaaday laakiin aan koorskan dambeyn galay ee briveska ayna ogeyn in markaan imaado lay qabto. waxaa xigay waxay ahayd uun halgankeydii SNM inaan halkay ka wadno inaan qasnati ka noqday maxaan ku idhahdaa SNMta magaalada jubeele sanaaciya oo meelihii ugu dakhliga badnaa ee SNMta taageeri jiraya. waxaan xumataa ku xusuustaa aniga mabda'iyan markan wax aaminsanahay islama bedelo reer iyo cid oo naftaada ayuunba qof walba la raaciyey. shar iyo khayr waxay naftaadu leedahay ee adugu aad gasho ayuunbaa lagu qabanayaa aakhiriya adduunkaba. waxaa dhacday khilaafkii SNMta dhex maray ee qoladii garabkii ay maxamed xaashi cilmi allah u naxariistay iyo muuse bixi ay hogaaminayeen oo reerka ugu badan ee meesha jubeele sanaaciya degana reerka ahaa xuseen abukorka. ayaa waxaa la yidhi lacagtii axmed oo hadirin SNMta waxaad u dirtaa garabka xuseen abukor. wayla noqon weyday waan ka diiday. waxaa yidhi tanan hayo SNM maanta marxalad aynu ku kala leexino kharashka yar waa kharashka yar ee soo haya SNMta bay soo haynaya. markaa fikrad baan u soo jeediyey markii dambe la qaato wartan way joojin mayne haddaynu doonayno garabkan kalena diyaar baanu ahay aynu lacag kaloo gaara aynu isa saaro inu ururino laakiin taa SNM weynaha yaana joojin. fikraddii waa la qaatay. fikrad fiican bay noqotay. axmed siiraanyo markaa guddoomiye ka ahaa way soo mahadnaqay.
marka anigu mabda'iya waxaan aaminsanahay anigoo Axmed ayaan ku dhaqaaqa hadalladan maanta aan duubayo uma socdaan laba guriba uma socdaan laakiin dadweynaha majoritigiisa oo inta badana ayaan la hadlayaa labadaa gurub waxa weeye group isagu xukunka aanu nafci ku haysan dabeecad ay u tahay mar walba kii xukunka qabtay inay shacabka u tumaan oo mashxaradaan oo ku filan tahay sawir baan la galiyay hebel baan la cashayay qurjoogna u badan dadka caynkaasi waa dad wax ma taraan oo nin ma soo saaraan laakiin weligood mucaarad ma noqdaan maanta sidaa uu maxaafidka u yahay buu qoladii mucaaradka aad xil ka qabsanaysaayo siduu mudirbaanka iyo shacabka u tumaya waana dad aad la yaabayso waayo wax alla wax ifartuu gashanaya ma jirto waa uun hadal iyo sawir baan la galay iyo waan la sheekaystay hebel iyo intaasu ku faanaya nin maaragtay u dhadhawo lagu sawiro aan ku ag joogo noocaasi maanta waa muxaafid beritana waa muxaafid oo iyagaa shacabka iyo durbaanka kaaga horeynaya qolada kalena waxa weeye reer walba 100 qof oo hortaagan oo afmiishaara ah oo ilaa dhowr iyo 90kii iyagu mar walba dowladdii joogta la qabsada laakiin iyagu waxay kula qabsadaan waa dhaqaale waa nafci waa dan gaaray ku qabtaan ragga qaarkood wasiirada iyagaa ka dakhli badan midna xil kuma magacaawna laakiin waxay ku magacaabayeen dadku ay kala jebiyaan iyo wargelinta iyo dacaayadda iyo abaabulka iyo waa dadka maskaxda ka haysta dadka kuwaasina waxa weeye dee waan ogahay halkay taagan yihiin beritana nafciguun bay qaadan doonaan haddii aynaan ka digtoonaan marka iyagu inta xilka haysa iyagaa ka dhibaato badan kuwa xilka hayaa runtii wax dhib oo saasa ma hayaan laakiin dadka la isticmaala ee dadka kharibay waa nooca aan xilna haynin wixii ummadda loo qaban lahaana iyagu dhexda u fadhiistay ee dunta mariyay labadaa gurub la hadli maayo dadweynahaan la hadlayaa dadweynaha inta soo hadhawo intaa baahida u qabtay dowlad wanaag inta dowlad wanaagga baahida u qabta ee reeraha madaxa la isugu xidhay ee la kala qaybiyey ayaan la hadlayaa waxaad ogaataa marka lagu leeyahay abtiga iyo awowga inaabtiga habarwadaagga habaryarta inaabtida habarwadaagta dumaashida seediga marka intaa lagu leeyahay waa kula col reer lagaga dhigayo maxaa tahay adigu dee miyaad garanaynin dadka reerka lagu tilmaamayo inuu reerka dadkaas ay yihiin ma dad samada ka yimi baayo gooniya iyagana siyaasi leeg ayaa dhegta loo saaraya la odhanayaa reerka ninkaasi hadda waa kula col labadiinio wada hadal baa laga dhex faa'iidaysanaya mar sida loo program garanayo maskaxdiina loo gelinayo waxaa dhici kartaa inay iskuba dhacdaan marka dambe oo adabtigaa gowracdo waa inayna soo marto waxa waa in lagu koraa waxay ugu yaab badan waxa weeye dadka qurbaha jooga ee arkaya meesha ay joogaan inuu hindina ka noqonayo ra'iisul wasaare waddanka ingiriisku ayna soo martay in ninkii kenyaanka ahaa ee obama madaxweynaha dowladda ameerika ka noqday in inanta maanta u tartamaysa madaxweynenimada ugu dhow maraykanku aabaheedna jamaican iyo hooyadeedna hindiyad labadii qof ee isku soo hadhay imanka conservative partyga ingiriiskana ina nigeriana iyo nin cadi ay ku tartamayaan dadka halkaa maraya ee aad la nooshahay ayaa qoys yar oo magaalo walba ay wax ka yar kun ay degan yihiin ayaad 15 haybood u kala saarayso oo u kala qaybinaysa oo weliba siyaasiyan u kala qaybinaysa qof waliba maaragtay dee reer buu ka dhashay oo wixii uu tabcado inuu reerkiisa ka warhayo oo dadka aqaariibtiisa iyo ehelkiisa iyo xigtadiisa iyo uu hagaajiyo hada lacidu diidani ma jirto wana waajib laakiin dan guud marka laga hadlayo inaad reere u kala qaybiso halkaana waad ku nooshahay sidaasi dadku u dhaqmaayo waayaan diro weyn weeye waa lagu saaqiday waa dadkii wax ka baran lahaa war waxaynu sm markaynu sameynaynay qabaa'il baynu diidanayn xukun qabiiliya oo qabiil ka fadilaya qabaa'ilka kale baynu diidanayn
in dadka loo kala qaybiyo qabiil baynu diidanay maanta iyadoo snm talinayso in telefishinadii lala soo fadhiista reer hebel iyo reer hebel oo reeraha laga caayo qaana lagu ammaano shirarka reerahana laga baahiyo telefishinka qaranka iyo idaacadda qaranka waa dib socod weyn dib baynu dhacnay marka waxa weeye waa dadka yaree labadaa guruub midna ha dhegaysanin waxaa idinka maqan danaha idinka maqan waa isku wada mid waxaa idinka maqan waxbarashadii baa idinka maqan guri walba carruurta fadhida waynu ognahay caafimaadkii baa idinka maqan wixii wax idin qaban lahaa waxaad ku helaysaa xataa haddaad kan ka weyday uu joogo horta isaga bedelaadda wax keenta siyaasiyiintu ha bartaan inaad eri karto inuu adiga kuu shaqaynayo markay taa dareemaanay bartaan bay wax kuu qaban karaan laakiin haddii ay og yihiin inay iska fadhiyi karaan haddina dib u dooranayso cidina wax kuu qaban mayso cid wax kuu qaban mayso ha barto gacantaadu inaad wax ku bedelato ha barato caqligaagu inay dadkani shaqaalahaaga yihiin ha barto lacagtan lagugu laaluushayaa inay tahay tii adiga lagaa qaaday ee wax lagugu qaban lahaa iskuulla lagugu dhisi lahaa iyo tagriiqya lagugu dhisi lahaa baro sida wax loo bedelo waddamada aadin joognay dimuqraadiyadda lagu sheegaya waxay halkaa ku gaadheen waa bedelaad ninka madaxdii wuxuu ogyahay hadduu shaqayn waayo muddadaa la doortay inuu busijir dabadda yahay markuu nin waliba taa ugu yahay had iyo jeer way isbedelaan marba xisbi baa qabta waayo waa waxay barteen haddii xisbigu meeshaa ku raago inuu isdhiganayo way ka takaro dadku haddaanu saa isu bedelayn inuu guntan yahay unanoo ree hebel baan ahayo hebel un baan la soconaya wax alla wax isbedelaya wax wanaagi ma jiro ree hebelka kala yimaadaana halkii unbay ka maysiyaan haynaga noqoto kambeynka maanta ka ugu dambeeya inuu qabaayilku kambeyn gareen waayo waa la kalifay dowladdii baa abuurtay nagu mucaarid ku eedahay maayo dowladdii baa abuurtay qabyaalad cad oo telefishiinadeedii madaxweynihii hadhiya habeen ku mashquulsan yahay reere iyo jiriba ula kala shiro mid baanu sheegayaa halkan dadka aanu isna qaano waxa weeye muuse bixi cidiga taqaanaa way yar tahay waa nin aanu ilmaadeernahay qoyskiisa qof maanu aqaanay isna qoyskayga qof buu yaqaanaa waa isla qaanaa dad is ixtiraamaanu nahay dad ra'yigaa siyaasadii kursigaa u fadhiyo aynu ku kala duwanay berika maalinna waxaanu ilaalinaynu dadkaa walaalaha baanu nahay cid umaan diran cidina nama dhex gelin marnaba isnaguna cid ima soo diran waxaan weynaya dad aad isu yaqaan baanu nahay is ixtiraama oo is sharafa waxyaabaha weliba aniga shaksiyan wax u yaqaana dabeecaddeedu u yaqaana intaa aan la shaqeynayay maalin keliya madaxweyne muuse waxaan diidanay lama iman haddana wax badan oonu qoray oo uu diidanaa baa jirta wuxuu og yahay aniga in waxaan iga dhab tahay iga dhab tahay markaa laabtiisu ku haystay ilaa markii dambe waxaynu ka sheekayn doonaa waxyaabaha badan oo aynu isku qabanayn markaasaasoo horta uu yaqaana oo igula soo dhici waayey isagoo madaxweynihii oo isagoo magacaabay inuu yidhaahdo axmedo waxaa qabo waxaan diidanahay igula soo dhici waayey isagoo dad badan oon ogahay waxay diidanayeen inay u fuliyaan aniga wuu igula soo dhici waayo waayo wuxuu og yahay dabeecaddaydu yaqaana annaba waan ku ixtiraamay runtii inkastoo dee qalbiga waxaad ku hayso ay ka wanaagsanaayen inaanu naaqishno oo laga yaabo inaan qancin karayay haddii uu inaaqishi lahaa laakiin waa dhegaystaa waa waraaqahanu qoro waa dhegaystaa laa wanaagsan tahay waa fikrad fiican laakiin wax ka qabtaana ma jiro wuxuu aniga ugu amruu yidhaahdo waxa axmed uu sameeyo aan diidayna ma garanayo ima soo maray marka dadka waxaan leeyahay war waxa naga dhexeeya shaksi maaha wax colaado shaksi inagama dhaxayso kursigaa uu fadhiyo ummaddu uu fadhiyo iyo dabeecaddaasi anigu aan leeyahay wax ku hagaajinayo ayaa isla garan weynay kursigaa hadduu ka degana siduun baanu nahay laba nin oo ilmaadeer oo saaxiib oo heshiisa baanu nahay waxaanu ku heshiislaanahay waxa weeye kursigaa uu fadhiyo iyo maamulkiisa taasina waa taa wixii aan ku diidanahay ee aan ka arkay ayaa inoo bilaabmi doona insha allahu tacaala laakiin waxaan leeyahay insha allah bismillahi alkariim ilaahay waa in laga saari doonaa cunsuriyadan fogaatay iyo qabaa'ilkan madaxa la isugu xidhay
ilaahay inaga badbaadiyo, ilaahay inaga badbaadiyo. Doorasho wanaagsan oo xalaal ah inoo dhacdo. isbeddelkaan u codeyno, isbeddelkaan u codeyno, isbeddelkaan u codeyno, inaynu baranno inaynu wax bedeli karno, si berrito ka maalin kan aynu dooranayna aynu kula xisaabtano oo aynu baranno in dadkani yihiin shaqaalaheenii. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.